ayada looma abuurin inay qoyska biisho oo ay soo shaqayso kaligeed. allana waxa uu ku beeray awood, waxa uuna qaas ugu dhigay awoodda cunto karinta iyo ilmo korinta. ayada naftirkeeda ma taqaano qiimaha ay leedahay. risq waxa ay tusaale u tahay hooyooyinka u halgamay carruurtooda, taasoo isku dayday inta ay awooddo in ay daboosho baahida carruurteeda ayadoo la halgamayso duruuf kasta. waana mid ka mid ah dumarka baahan oo mujtamaca ka ah 70% oo ku noolna duruuf adag. waxaana idiin turjumay anigoo ah Cabdulxaliim Cali. daawasho wacan. bismillaah, aan bilowno liibaan cusub. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. waxaa ku hadlaysaa af carabi maasha allah. maxaa iibinaysaa walaashii? maxaa agtaada ahaaday? waxaa hayaa bur. kani waa maxay? anaga Soomaali hadaan waxaan u naqaanaa bur la qamiiriyo. maxaa af Soomaali ahaan ku dhahdaan? waxaan u naqaanaa bur ama qamiir. qamiir waa imisa halkii xabo qamiirka? waa kun. halkii xabane? waa ku shilin. halkii xabo ku shilin? wallaahi waa qaali dhab ahaantii. dhab ahaantii qaali ma ahan. aniga ma fahmaya af Soomaaliga. hagaag. adiga maxaa dhahday? muxuu ahaa hadalkaa dhahday? waxaa ku dhaa wax miga iibsanaysaa af Soomaali ah. dhab ahaantii waxaan rabay inaan kaa iibsado, laakiin waa qaali. waxaa haystaa anigoo dhan. imisa haysataa aan ku siinay? imisa haystaa? halaan ayaa haystaa. halkan kun ayaa haystaa. hagaag. kani waa kunkii ugu dambeeyay aan hagaag. ma haysto. waxaad doonaysaa 2 xabo? dhib male waa ku siinaynaa. 2 xabo? alxamdulilah, dhib male waa ku siinaa. dhab ahaantii waan ka labalabeynayaa inaan iibsado, maxaa yeelay waa kunkii ugu dambeeyay aan haysto. dhib ma lahan, waxaad doonti qaado. dhib ma lahan, ilaahay ayaa siinaayo. waxaad doonti qaado. انت hagaag, dhib ma laha, waan qaadanayaa. waxaa ka dhiganayaa maanta casho iyo qado insha allah. maya dhib ma laha, qaado 2 xabo. alxamdulilah. muubta haa. adiga ma haysaa wax aan ku rito sida bac? maya ma hayo wax bac ah. dhibaato waa walle, aniga xataa ma hayo bac. tiish miya? muubta 2 xabo inaan ku qaadan karo hal ku shilin? dhib ma laha, alxamdulilah. qaado waxaad doonti, ilaahay meel kale ga siinaayo. ilaahay nimco leh, walle meel kale ka sii doona. ilaahay caafimaad ha ku siiyo. sidoo kale. ma dhadhamiyaa? haa. halku ma ku siiyaa mise xoo ahay may? isi. dhab ahaantii bis waxaa u baahanahay xoogaa sokor ah, yacni sokor siyaada ah, ama malab. malab ma hayo. ama shaah aan ku cuno 1 xabo. shaahna ma hayo. kani ma inankaagiiba? haa. magicii? abubakar. ابو بكر كيف حالك؟ يتكلم عربي ابو بكر؟ نهائي؟ adiga goormee bilowday maasha allah inaa furato mashruucan? waxaa bilaabay maalintaa inta imaaday. waxaa u iibiyaa si aan risq ugu helo. adiga intee ka imaatay? yacni adiga intee degneed? halkan mise meel kaloo ka mid ah Soomaaliya? لا نحن كنا في مقديشو maxaa halkan u imaatay? halkan waxaa u imaaday inaan risq ka helo. alxamdulilah. xagga ciyaala ii joogo, intan ciyaala ii joogo. haa, yacni halkan ciyaala kuu joogo, muqdisho ciyaala kuu joogo. hagaag, adiga maxaa u laabalaadahay? haddaa laabo lahaa waxaa laasim ugu ah inaan hadda bilaabo. waxaa safar ku gala ma haysto, marka maxaan u safrayaa? waxaa safar ku gala ma haysto, haddaa helo insha allah waa bixi doonaa. yacni adigu waa niyeysatay inaa aadid, laakiin duruuftaada ayaa ku caawin weysay. laakiin waa la khiri doonaa. abubakar wax ma u bartaa mise ma barto? abubakar haddaa rajeynaynaa inaan geeno dugsi. yacni abubakar wax ma barta miya? ilaah ku caawiyo walaashayda. طيب الحمد لله كله خير. insha allah abubakar wuu weynaa doonaa, hooyadiisna wuu caawin doonaa الله شكرا. iyo walaalihiisa. hagaag, adiga intee ku baratay af carabiga? ani waxaa joogi jiray imaaraad, kadib baa soo laabtay. adiga imaaraad ayaa tagtay maasha allah. adiga imisaa joogtay imaaraadka? مهارات يمكن 9 سنين. 9 سنوات. aniga waa ku xuma inaan su-aashan ku weydiiyo. aawo ninkaaga? way furani malihi. kullu khayr insha allah. alxamdulilah. ilaah kuu kaalmeeyo. okay. marka koowaad waxaan kaaga mahad celinayaa sidaa ii caawisay.
waa laasim dadka waa walaalo inay is caawiyaan soo sax maaha run baa sheegtay annaas linnaas yacni hadduu qofka caawinin qofka walaalkiisa ah muxuu faa'iido leeyahayba adduunka alxamdulilah alxamdulilah maanta cashada ku casheero waatanaa aniga adiga waxaan ahay isku dhibaato calishaan isku duruuf insha allah ilaahay farad keeni doono insha allah adiga ma taqaanaa meesha aniga ka imaade ma garanayo sababtoo ah ma ku weydiinin maxaa ii weydii weyse aniba waa ku weydiiyey aniga waxaa ka imaaday imaaraadka imaaraadka waa dad wanaagsan imaaraadka maasha allah waa wadan aad u qurux badan abubakar bismaa kula nool abubakar iyo saddex kale ah kuwa muqdisho jooga oo ciyaalkaaga ah yeela nool yihiin walaashaada maxaa yeelay ayada waxay haysataa ciyaalkeeda waa ogoomo ninkeedana wuu dhintay ciyaalkeeda haysataa ciyaalkeygana waa la jiraan ciyaalka walaasha ciyaalkii hal meel ku aniga waa ka xumaa inaan su-aashaas ku weydiiyo dhib male waa caadi su-aashaa doonto ay weydii kartaa adiga goormee u laabanaysaa muqdisho maxaa yeelay inta waxaa joogta waqti dheer aa lacag aruurinaysay marka goormee laaban wallaahi ilaahay aa og goortaan laabanayo laakiin waa caadi intaan kasii shaqaysanaya anu waxun baan ka shaqey doonaa alxamdulilah adiga intay degan tahay yacni haddeertaa intay degan tahay ma waxaa weydiinaysaa meesha ka shaqeeya mise meeshaa deganahay yacni meeshaa ka degan tahay waxaan deganahay meel meeshan ka dambeyso tani waa nimco dhool caddeyntan oo tan ah wallaahi waa nimco alxamdulilah washukrulilah aniga waxaa hayaa warqad aan rabo inaan ku siiyo hagaag warqadan warqad intee geliyey farxadeyda maanta waxay ka imaatay imaaraadka aniga waxaa ku fikiray inaan kaa farxiyo oo ku siiyo maadaama ay ii iibisay maya mahadsanid farxadeyda iyo waxa ugu qalisan waxay ka imaadeen imaaraad أكبر لنا من الإمارات سبحان لا والله العظيم الله يرحمه يا أخي suurtagal miyaa inaa waraaqadan fiirisid ma aqaan sida wax loo aqriyo adiga ma taqaan miyaa si wax loo aqriyo bis waxaa ogaa magacayga inuu ku qoran yahay adiga magacaaga bis maa taqaanaa bis fiir wax ku qoran waxaa ku qoran magacaaga risqi sax haa kani waa magacayga abubakar wax ma aqri yaqaanaa mise may abubakar wax yaroo carabi oo yaqaanaa waraaqada waxaa ku qoran magacaaga hagaag suurtagal miyaa inaa ushaan wax yar ii qabatid haa iidii baa ku qabtee طيب يا أم بكر أبو بكر عندك ku caawi karaa sidee ii caawinaysaa mistaagsanaa kartaa mise waxaa u baahantaa meel cawsadid hagaag tani qabso adigaa lehe خليها عندك tani ani maa haysanayane لحظة يا أستاذ رزق اللي موجود هني ما شاء الله ما شاء الله mahadsanid wallaahi mahadsanid waa iga farxisay ilaahay kaa farxiyo maama risqi mid ayaa maalin waxa uu igu yiri qofka faraxsan waxaa suurtagal ah inuusan haysan wax kasto laakiin uu haysto qanaaco taasina waa waxaa wejigaaga ka arkay iyo dad badan oo ka mid ah dadka wanaagsan ee aan caawiyey dhowl cadeyntooda iyo farxadoodana meel kasta ayay taalaa alxamdulilaah ilaa khayr ha kugu amaalmariyo ilaahay ha ku barakeeya adigani waxaa waraaqad ku qorneed inaan kuu samayn doono dukaan ama maxal iyo kafeteriya الكافتيريا طيب waxaa kuu samaynaynaa kafeteri yar ama kafeteri weyn adigu midka adiga aa rabtid midda kale lacagtan waxay kaa caawinaysaa inaad ku aadid muqdisho waxa ugu horeeya waa inaa carruurta horta soo aragtaa maadaamaad ii furaysa halkan igaga fur carruurtaadu waa 7 sax haa waa 7 insha allah waxaa kuu keeni doonaa gabar ku caawiso oo kuu shaqayso midda kaleetana gurigaaga ayaa kaaga furi doonaa kafeteriya insha allah hagaag mahadsanid ilaa khayr ha ku amaalmariyo sidaasoo kuma wanaagsano
insha allah carruurtaa intay kula joogi doonaan tanna abubakaraa le sii طيب aniga waxaa kaaga mahad celinayaa dhol caddeyntaada iyo intaa i caawisay mahadsanid adiga waa qofkii caabiyani maaha wallaahi aniga ma ahan laakiin dadka ayagaa ku jecel anaga ugu dambeyntii waxaan ahay gudbiyaal oo keliya inaan lacagta soo gudbino mahadsanid walaashayda agteena xataa ma ahaanin kursi waa ka xumahay aniga uma baahni kursi xataa tan uma baahni ushaan sababta waxaa rabay inaan ku muujiyo bis inaan tacbaan ahay alxamdulilah yacni aniga waa fiicanahay keliya ammaanada ayaan gudbinayay oo liisoo dhiibay wallaahi ma aqaan waxaa ku dhaho laakiin waa ujeedaa inuu xaalkayga wanaagsan yahay alxamdulilah yacni uma baahni ducadaada mooye yani iyo kuwii ii soo caawiyey insha allah inoo soo duceey mahadsanid ilaahay ha ku barakeeyo tan ma u baahan tahay haa haddaa adiga u baahnayn maxaa yeelay waxaa u rabay walaashayda caaisha walaashaa miyaa u baahan ushaan maxaa yeelay lugta ayaa 2 mar laga jara waxaa laga helay kansar ilaa u gargaaro هدية لعائشة صح انها بسيطة لكن سبحان الله راحت للي يستحق شكرا يا سادة رزق الله خير الله يفتح الدنيا بخير والناس للناس ان شاء الله الله يعطيك العافية معاك ان شاء الله معاك ان شاء الله شكرا